halkani waa halgan raadiyo waxaan waraysi kaga qaadi doonaa gudoomiyihii hore ee degmada Buuloburte Cabdi Daahir Guure ahne u qaybsamaha degmooyinka iyo gobolada wasaaradda arrimaha gudaha iyo dawladaha hoose ee Hirshabelle ku soo dhawo mudane raadiyo halgan wadaway bismillaahir rahmaanir rahiim dhamaan bahda saxaafadda raadiyo halgan iyo Cabdinaasir Maxamed Ismaan waa ma santahay sida mataqaanaa uga shaqeyso wadanka wana warqabta dalka adigoo ka fog waa ku dhawahay insha Allah wixii aan waafajino waa iska wareysanay okay ku soo dhawo waana mahadsantahay ku soo dhawo raadiyo halgan mar labaad shaqaqadii ka dhacday degmada Jalalaqsi shalay iyo maanta bal aragtidaada Cabdinaasir waa runta أقصى دقمين قول كيران دقمة كمل معمول دولة سوى الخطة ومركز بحين وكسوين كمان كان عيوه هيل ولا قول كيران كهول دقمين كبلدين يقولوا برد جريح غير كمل أنا وكسوين تاري معلمان من ملوك أسمو جري ما أنت نوحد علي خلاف كاسر والشغال ساكن علي waxaan leeyahay ciidamada hil walaal ma la beeldaray karo waa ciidan Soomaaliyeed waa dad Soomaaliyeed waa dad Islaam ah waa dad noo soo gurmaday qof oo madax ka wax qalad oo sameey kara si qalad oo tacaamul kara laakiin ciidanka reer Djibouti oo madaxda Soomaaliyeed gildo oo gobolka Hiiraan uu soo deeqay ciidan la beeldaray karo oo la qalaafi karo oo laga soo jeesan karo maahan waxa sida u dhaceen waa qalad binaadamku hadda carabiga kale uu soo wasqinaa hadii maamulka ama odayaasha ama dhalinyarada dadka bulshada shaqsi qof reer Djibouti ka mid ah si qaldan oo tacaamushay reer Djibouti waxa kama hadleen helo waxba kama hadleen qaladkaasna in la saxaa u soo jeedina reer Jalalaqsi iyo maamulka degmada oo rag dhalinyaro oo aad u sharfan ah kana soo baxay shaqadooda hadda islaahay ورق دجاج كل شيء كسر جيدا كشقين أيام هذا يقولوا بيسا كتاعي يوبهم بيقولوا مقبل الله صبي هذه كل شيء يوم أنت شقاقة كتاجنيري ما أنت كل إسقعان صار كذا دقمداس كور إذا ماذا جوجو دولة الصومالية كار مسيسي ملك قلبي oo ciidamo isku filan ma yihiin waa ciidamada nawaaxiga degmada Jalalaqsi masla waa la dayacay ku soo dhaw mar labaad Abdinaasir daarantaas waa sababta hadda reer Djibouti iyo maamulku soo gudbayaan ama ciidankii iyo dadka ganacsatada ay soo gudbayaan waxa sababayaba meesha waxaan ka jirin ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ciidankii xoogga dalka Soomaaliyeed loogu talagalay in loo qalabeeyo oo loo diyaariyo oo ciidamada uga shaqeeyaan deegaanka soo jeeday oo maleeshiyada deegaanka dowladda Soomaaliyeed ay dayacday qaasatan saraakiishii xoogga dalka Soomaaliyeed oo u qaabilsan cidii hore u joogtay cid hadda joogta oo degmadaas wax waqti ma gelin guutadan ciidamo la hore ka tirsanaadaan oo hal urur ah meesha degan wadina waxay ciidan dowladda oo maleeshiya lama siinin xaquuqdoodii waa la isgareeyay wasaaradda gaashaandhigga loo qaaday xilligii maamulkii hore oo ka shaqeynaya meesha ciidankaasu Jalalaqsi ku sugan yihiin ayagoo mataqaan loogu talagalay in amniga ka sugaan magaalada si dabiiciyan iyo deegaaniyan iyo wadannimo iyo dhalinyaradii deegaanka soo jeeda ayagoo ay difaaca ku jiraan laakiin xaquuqdii agabkii ciidan iyo nambarkii iyo ciidankii xoogga dalka Soomaaliyeed wuxuu lahaa xaquuqad ay ma lahan sababta marka meelo badan waa ka sheegnaa hadda ka hor sababtaasna waa kulay waa ilgooni oo kulay ay dowladda u yeelaneen degmadaas hadday tahay dowladda federaalka qaybteeda wasaaradda gaashaandhigga iyo taliyaasha xoogga dalka Soomaaliyeed ka warqabaan weliba qaasatan taliyaha qaybta taliyaatanaad uu ka warqabaa taliyihii hore ciidanka lugta haddana taliyaha xoogga dalka Soomaaliyeed uu ka warqabaa maran ka hadlay hadda ka hor asoo ku sugan areas weli wax suurtagal ma jiraan sababta keenaysan in hadda
dadkii shacabka ahaa iyo ciidankii nabadilaalinta u joogay degmada oo waxaas ka dhex dhacaan ama ciidamadii booliiska ahaa oo yaraayo loogu talagalay inay degmada ka shaqeeyaan iyo ciidankii hilowga isku fahmi layihiin meesha waxaa ka maqan xoogga dalka soomaaliyeed ciidankeeda ka maqan sidaa ka warqabtana buurburda iyo beledweyne hadda ciidanka ku sugan yihiin waxaa garab taagan habeenii maalin ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ee ay kaalin mugla ka qaateen ee dhiseen laakiin degmada jallaqsi nasiib darra ma suurta gelin ciidan xoogga dalka soomaaliyeed oo shaqeeyo oo dhisan ay garab taagan yihiin ciidamada reer jabuuti ama ay gacan ka geysteen ma dhicin maamul istaafidiisa leh iyo boliis yar iyo taliyo boliis oo hadda mar dhow la geeyey oo dhalinyaro ah oo shaqadiisa ku furan ayaa meesha ka jira laakiin waxaan ka jirin ciidankii xoogga dalka soomaaliyeed waxaan leeyahay madaxda maamul goboleedka iyo madaxda xoogga dalka soomaaliyeed iyo madaxda dowladda federaalkaba degmo dhan oo dowladda gacanta ku hayso oo aan ciidan militariya oo cadowga geesaha ka taagan ka difaaca aan la sameyn waa nasiib darro mahadday oo dhowr kilomitr u jirtana ciidanka xoogga dalka uu ka jiraa burburda oo 60 kilomitr u jirtana ciidanka xoogga dalka uu ka jiraa marka degmadaasu waa degmo dayacan hadday tahay dhinaca cadowga iyo hadday tahay dhinaca maamulka la shaqaynta maamulka lala shaqaynayaba goos maamulku wuxuu ku shaqayn karaa amnigiisa la sugo iyo ciidamo inuu haysto ka falgala degmada marka waxaa isku soo haray ciidankii caawinayay oo dowladda soomaaliyeed ay heshay oo reer jabuuti oo dowladda soomaaliya jabuuti ay siiday oo reer hiiraan nasiibka ay u heleen oo saf soomaaliya ku hadlayay nasiib darro markay isfahmi waa dhaca xilligan oo dhowr sano kadib dadkii markay muddo soo wada noolaayeen ay isfahmi waayaan horta odayaasha reer jallaqsi iyo dhalinyarada reer jallaqsi iyo cid kasta wax fahmaysan waxaa ugu baaqa in reer jabuuti gacmaha lagu qabsado la marxabeeyo qof iyo laba reer jabuuti oo qaldanna dowladda jabuuti iyo saraakiisha jabuuti waxaan rajaynaynaa inay ka warqabaan ay ilgooni war u lahaadaan haddii isfahmiyooda oo qof iyo laba ka jiro dhinaca reer jabuuti waxaa raalli kama ahan saraakiishooda kama aha madaxda reer jabuuti oo soomaaliya ku sugan kama ahan